doonta waxaa ku dhinteen 16 qof oo Soomaali ah Eritrean ku jiray 16 kaas qof waxaa ka mid ahaa dhalinyarada aan ka xasuusto Maxamed Quule oo ka soo jeeday Soomaali galbeed ama Jigjiga dhinacaas ka soo jeeday dowlad deegaanka Soomaalida yar Liibaan la yiraahdo doonta waxaana dhimashada sababtay kuleel dartiisa iyo motorka oo qaybta hoose ku jiray iyo dadkii oo badan waxaan jeclahay magaciisa waan ka sheegi doonaa runtii aniga saxan ii galay mana jeclay inaan ragga qaar la qariyo magaciisana waa sheegi doonaa waxaana la yiraahdaa Xuseen madaxay oo hadda xilal ka hayay maxaa la yiraahdaa gobolka Shabeellaha Dhexe doontii qaybta aniga laga galaan fadhiyay marka waxa igu soo daateen naafto madaxay igu soo daadatay marka dambe waxa go'aansaday banaanka inaan u soo baxo banaan markaan imaaday kuwa magifaha meesha joogeen oo doonta qaybta laga wado doonta qaybta kore ciriiri meel laga fadhiistay ma aysan jirin waan soo dhaqaaqay doonta wili ma aysan dhaqaaqin laakiin marka banaanka soo baxay darbaax iyo xaraantii ugu bilaabeen tan iyo markii la sii daayay muuqaalka dad Soomaaliyeed oo sanado aad u badan lagu la'aa gacanta magafayaal Liibiyana taasi oo dawladda Liibiya ay ka sii daysay isla markaana muuqaalkooda ay baahisay waxa dib u soo noolaatay rajada dad Soomaaliyeed ama qoysas Soomaaliyeed kuwaas oo raq iyo ruux ku la'aa dad ka maqan kuwaas oo markii ugu dambeysay ku sugnaa dalka Liibiya xogo badan ayaan raadinay oo ku saabsan dad la la'yahay halka ay ku dambeeyaan caawa waxaa noo suura gashay in aaladda Skype-ka aan ku wareysano Aweyseed Abuu oo ah nin dhalinyaro ah isla markaana ku sugan magaalada Toulouse ee dalka Faransiiska Aweys wuxuu ka mid ahaa dad gaaraya 600 oo ruux kuwaas oo Soomaali u badnaa isla markaana sanadii 2016 dooni ka raacay dalka Liibiya sidoo kalena tagay dalka Talyaaniga Aweys wuxuu u sheegay in safarka ay ku baxeen 600 ee ruux 400 oo kamidana Soomaali ahaayeen ay uga geeriyootay 16 ruux oo qaarkood oo ay carabaabay isla markaana xog ku saabsan uu siiyay xogtan ama waraysigan aan caawa ka qaadayno Aweys waxay muhiim u tahay dad badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo raq iyo ruux ku la'aa isla markaana baadigoob ugu jiray qaar kamid ah eheladoodii oo ay Liibiya ku weysnaayeen ugu horeyntii Aweys waxaad ku soo dhawaataa telefishinka SMS marka xigtana waxaad warbixin naga siisaa doonidaasi ka baxda Talyaaniga ama ka baxda Liibiya ee ku wajahnay Talyaaniga 2016 wariye Bashir marka hore aad baad u mahadsan tahay waan ku dhawahay TV-ga SMS Somali TV waan kaaga mahad celinayaa haddii aan u guda galo dadkii muhaajiriinta oo aniga qayb ka ahaa sanadii 2016 magaalada Masraat dalka Liibiya oo aan ka soo baxnay anigoo badan oo 600 qof aan ka koobneen doontaasi waxa marka ka soo baxnay saacadu markay ku beegneed 2 habeenimo ama 8 saac habeenimo say u yaqaanaan dadka markaan imaanay xaggaasi doonta waxay doon 2 dabaq ah qaybta hoose oo ayadana marka doonta waxay ka kooban tahay yani sheegeen doon oo bir ah 2 dabaq ah qaybta hoose waxay ku jireen 300 qof oo ruux Soomaali ah iyo ajnabi kale Ethiopian Eritrean iyo Soomaali badan adiga marka hadaan ku hormaro doonta waxaa ku dhinteen 16 qof oo Soomaali ah Eritrean ku jiray 16 kaas qof waxaa ka mid ahaa dhalinyarada aan ka xasuusto Maxamed Quule oo ka soo jeeday Soomaali galbeed ama Jigjiga dhinacaas ka soo jeeday dowlad deegaanka Soomaalida yar Liibaan la yiraahdo asagana raxmar ah marka dhalinyaro badan ayaa ku dhintay aan xasuusanin xerada Liibiya aniga ku jirnay Masraat la yiraahdo dhowr xere ahayd marka dadka waa la isku keenay xerada mid waxa la yiraahdaa Cabdinaasir qof la yiraahdo oo asagana u shaqeyn jiray magafaha iyo kuwa badan marka dadkii waa la isku keenay dhowr aniga xeradeeni ilaa iyo adiga 200 iyo 150 wax tirad la eg intaasana laga soo qaaday tirada kala meel kala laga keenay marka Soomaalida kala ma garanayo laakiin waxaan xasuustaa doonta waxay socotay qiyaastii adiga 2 saacadood iyo wax ka yar dad wax u geeriyoodeen 16 qof doonta waxaana dhimashada sababtay kuleel dartiisa iyo motorka oo qaybta hoose ku jiray iyo dadkii oo badan oxygen aysan heleenin dadka marka waxaan xasuustaa aniga waxaan kamid ahaa dadka hoose ku jiray
laakiin alxamdulilah weliba waxaan ku aadnaa qaybta duleelka laba duleel ay leedahay doonta oo dadka hawe ay ka qaadanayaan tubooyinka oo waxaa la geliyey sida ay dadka hawe u helaan marka doontii qaybta aniga laga galaan fadhiyey marka waxay igu soo daateen naafto madaxay iga soo daadatay marka dambe waxaa go'aansaday banaanka inaan usoo baxo banaanka markaan imaaday kuwa magifaha ah meesha joogeen oo doonta qaybta laga wado doonta qaybta kore ciriiri meel laga fadhiistay ma aysan jirin waan soo dhaqaaqay doonta weli ma aysan dhaqaaqin laakiin markaa banaanka usoo baxay dharbaax iyo xaraantii igu bilaabeen uma aan joojin waxaan go'aansaday inaysan nafta iga qaadan sababtoo ah meesha aan ku jiray oo darteedii oo naqas la'aantii oo naaftada indhaha iga daadatay waan soo baxay waa dabaqmay runtii waxaan xasuustaa markaa doonta markaa banaanka soo baxay adiga badda iska jabi degan oo ahayd bishii haddaan sheegay bishii waxay ahayd bishii 7aad ee 2016 marka waxaan xasuustaa dhalinyaro badan oo aan hadda asxaab nahay ilaa ay hadda aan iska warhayno hoos ay ku jireen runtii qaarkooda meedada ay la sheekaysanayeen waxay leeyihiin iga kac marka ma ogba inay meed dul jiifaan marka adiga doontii ayadoo 2 saacadood socotay waxaan helnay marka dambe maraakiib oo ka socda airline oo markab dagaal ah oo airline laga leeyahay kor dheer marka naga arkeen adiga diyaar maxaa la yiraahdaa ay sheegeen dooniya noo imaaday oo adiga 6 qofood oo saaran oo kuwa markabka ka socday oo markabka dagaalka oo airline wayna weydiiyeen su'aalaha waxaa ka mid ahaa yacni imisa qofood ka kooban tihiin imisa dumar ah imisa waayeel ah imisa caruur ah waxa la mid ah marka waxay nagu dhaheen oo nagu wargeliyeen inaan isdejino qof bal meeshiisa uu joogo oo fadhiisto adiga waxay noo keeneen way baxeen jaakadaha dabaasha ay noo keeneen jaakadihii marka way noo qaybiyeen alxamdulilah marka markabka wuxuu naga istaagay meel fog si doomana noola soo diray dadkii la kala badbaadinayay marka dadkii marka la qaaday oo markabka la geeyey markii ugu dambeysayna waxaa la soo qaaday kuwa ay sheegeen meedadka ilaah u naxariistay ragga halka ku dhintay horta waa dad muslimiin oo wada badnaayeen kulligoodii iyo kuwa mu'addan ah oo meesha ka adim jireen oo runtii ilaah u naxariistay waa geeri aad u xanuun badan bay ahayd ragga igu qaaliya oo maanta xaggaas isku baranay oo aad u da'yar runtii waxaan xasuustaa wiil liibaan la yiraahdo waa da'da haddaan ku qiyaaso 16 sano 17 sano jir meelahaas uu ahaa waa wiil aad mustaqbal u lahaa waaye marka raggaas waxaa ka mid ahaa xerada aan ku jirnay magafaha 2 mar ayaa lacag ku soo dilaaceen lacagta tii magafihii markay bixiyeen haddana waxaa la lacag kasta inaad bixisaan haddii kalena meesha joogaysaan dadka la idinka celinaya ayagoo badan adiga 12 qof ay ahaayeen marka lacagtii way bixiyeen lacagta labaad markay bixiyeen nasiib xumo meeshii badda ma uusan dhaafin balse wuxuu yiri baddaan inaan dhaafayo ma umaleynaayo yiri hadalka ugu dambeey u dhahay waana runtii halkaas inuu ku naf waayay wiilka iyo dhalinyarada kale oo badnaayeen meedadkoodna waa la soo qaaday markabka lagu soo qaaday talyaaniga la keenay runtii aniga ma xasuusanin aniga xitaa nafaqdari ay ugu dhacday runtii waa dareemi kartaan muddo badan ayaa ku jiray Liibiya waxaana ii sheeg sanadka markuu 2016 bishii 3aad dhamaadkeedii waxaa soo galay Liibiya magaalo la yiraahdo Umul Arani marka nafaqdari darteedii meeshaasi ma xasuusto doonta waxay ka soo xiratay meel la yiraahdo adiga dadka say sheegayeen Lambaduus inay tahay aan rajaynayaa ma xasuusto dabcan waxaan xasuustaa saxaafadda inay joogtay oo warbaahinada ugu waaweyn ee caalamka Al Jazeera kamid ah TV-yada meeshii joogeen way duubayeen taa YouTube-kii la soo geliyay mar waxaan isku dayay inaan baaro aan raadiyo markabka wuxuu ka soo xirtay markuu soo xirtay dadkii waa meedadkii la soo qaaday aniga markan la soo dejiyay waxay noo soo gudbiyeen inay faranaga qaadaan ay isku dayeen waana soo qaadeen marka dambena Roma dhankeeda nala keenay farihii qasab noogu dhigeen kadibna raggii oo meeshaas ku dhintay markaas ay ugu dambeysay ilaa iyo haddana war kama hayo waa maasantahay aweyso waxaan ku weydiinayaa yacni dadkan doonida idinla saarnaa ee geeriyooday goorme ayaa la ogaaday inay geeriyoodeen runtii waxaa la ogaaday markii dadkii la badbaadiyay oo markabkii noo imaaday ayaa la ogaaday sababtoo ka hor
qof walba wuxuu ku jiray xaalad adag. dadka qaar saaxiibkayga ka mid ahaa marab inaan magaciisa halkaan aan ka sheego hadda faransiis ila joogo wuxuu dhahay runtii iga kacmiyada dul jiifay waa dadka sababtoo ah nafaqdari iyo darteedii ay u geeriyoodeen iyo kuleelka iyo dhaxadoodii isgaraacayaan ma fahan ciriiri dartiisa. marka markabka markuuna badbaadiyey dadkii la soo badbaadiyey kadib aa la ogaaday inay meesha meedu ku jiraan. waa gartay inta aadan ka bixin Liibiya adiga horta halkee ka tagtay? wallahi aniga waxaan ka tagay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. waxaan ka soo baxay garaashka Muuse Suudi shaqshantiri ku yaalo. kadibna waxaan gaari loori aan soo qaatay waxaan imaaday xadka Namli oo South Sudan iyo Uganda adiga muddo 4 cisho joogay. kadibna waxaan soo galay Juba oo caasimadda dalkaasi South Sudan muddo bilan joogay. kadibna waxaan soo galay oo muqallisiin ay ila soo heshiiyeen. muqallisiintii waxay iga soo qaadeen magaalada Juba waxayna i keeneen magaalo la yiraahdo waaw aan iraahdo yani awiila waxaan joogay muddo isbuuca. kadibna isbuucaas kadibna waxaan noo soo wareejiyeen kuwa muqallisiin kale nagu wareejiyeen oo xadka na dhaafsiinayaan South Sudan iyo Suudaanta kale. kadibna meeshii ana keeneen kuwa kale nagu sii wareejiyeen gaari bas soo raacnay. baskii markaa wuxuu u soo socday Khartoum. baska inta xadka aan imaanin kuwa waxaa noo yimaadeen oo aan ku soconay muqallisiinta oo wada shaqeyn ka dhacayso magafaha xarun u ahna Khartoum markaas xarun u ahayd. waxaan jeclahay magaciisa waan ka sheegi doonaa runtii aniga si xun ii galay mana jecli inaan ragga qaar la qariyo. magaciisana waa sheegi doonaa waxaana la yiraahdaa Xuseen Madaxay oo hadda xilal ka hayay maxaa la yiraahdaa gobolka Shabeellaha Dhexe. runtii si xun ii galay oo bini'aadan islaamnimo aysan qabin oo si wanaag oo marka ku hadal afku ii macaynay Khartoumaan imaaday isaga la igu soo xiray lacagtii aan kula heshiiyey isagii marka waxa xiriirka wada dhaxeeyaan maxaa la yiraahdaa nin magafaha lacagta ayaga lagu soo diraa kuwa Liibiya xiriir ka dhaxeeya magafaha. marka lacagta dadka magafaha markay Liibiya tagaan lacagta dadka lagu soo dirsado waa ayaga marka lagu soo dirsado waxay leeyihiin Aways Sayd Abu Jaais oo micnaheedu taa Aways lacagta waan ka haynaa waa la sii gudbinaya waxaa loo sii gudbinayaa dhankaasi badda oo lacagta doontana lagu bixiyo. marka lacagtii waxaan wada soconay gabdho asi abti u yahay iyo aniga lacagtiina markaa Khartoum aan imaanay ii sheegeen saxariya soo galnay saxaraha duleedka Khartoum muddo 3 cisho xagga joognay anagoo badan 67 qof aan ka koobneen adiga waxaan ugu jireen Ethiopian adiga anaga ka badneen Soomaali hadaan ahay gaari waxaan la soo saaray 5 diish adiga ninka waxaan ku soo heshiinay lacag $2,300 ina lacagta magafaha waa soo baxnay meesha waxaan imaanay saxariya waxa soo galnay horta Khartoum duleedkeedii 3 bari kadib gaarigiina lagu soo qaaday oo looriga ahaa waxaa imaanay meel la yiraahdo saxaraha dhexdeeda ah saxaraha Liibiya kala wareega la dhahaa. kala wareegi markaa imaanay gaari Cabdibila ana lagu qaaday anigoo badan. marka gaariga Cabdibili anigoo ku jirna hal habeen waxaa koox oo burcada dhexda noo gashay oo adiga wadamada Chad ay ka soo jeedaan laakiin alxamdulillah wax dhibaato ma aysan noo geysan dad muslimiin bay ahaayeen. gabdhaheen sidoo kale Ilaahay wuu nagu xafiday oo gabdhahana la socday kuma aysan saqjaamin. markii saxarihii 15 cisho ku jirnay oo meesha nagu haysteen biyihii naga go'ay cuntadii naga go'day runtii alxamdulillah aniga nolosha waa ka qoostay. rag badan oo meesha markaa nala socday oo wadna bog la qabtay oo wadnaha qaar la qabtay waliba jirdil yani jirdila u sii geysteen. marka alxamdulillah muddo 15 cisho kadibna way is afgarteen ayaga iyo magafiyaasha raggaas waana la soo fasaxay waxaan imaanay xero la yiraahdo Umul Arani saxaraha magaalo yar weeyaan oo saxaraha marka laga soo baxo magaalada ugu horeysa oo Liibiya waayeen Umul Arani laho marka soo galay dadkii magacyadeena naga qoreen ragii dumarka waa la kala saaray qayb aan geliyeen aniga adiga muddo bilan ku jiray
dadka isla soconay lacagihii bixiyeen waa la fasaxay ani lacagtii saddex shay iguma aysan qaadana waa la soo diray ninkii waa loo soo diray ninka wuxuu dhahay ninka aweys ahaa lacag kama hayo lacagta inuu dafiro keenay aniga waa isku dayay waan adkaystay wax walba laakiin ilaah subxaanahu watacaala ayaan tala saartay wax kale aan samayn kara ma lahan aweysow ninka see ku aaminta markii hore ninka aweysa oo wallaahi lama aamini karo waayo sababtoo ah waa ku qasban tahay inaad aaminto qof kale ileen wada shaqeynaa ka dhexayso haddii asiga ku wadan ma iska bixi kartid kaligaa inaad gaarin iska maraaci kartid waa inaa qof ka socotaa magifaha ku weydiinayaa ka socotaa muqaliskaaga magaciisa uu ku leeyahay marka ilaaha iska tal saarta waana aaminay isagana markii saa waxaa dhacday lacagtii waa loo soo diray wuu inkiray dadkii isla soconay gabadha habti uu ahaana wuu fasaxay lacagihii way bixiyeen waa la fasaxay waxaa la geeyey magaalada Masrata anigana kadibna inoo aan iraahday magaalada bin Walid aa la geeyey anigana meesha waa ku xanuunsaday runtii nolosha waan ka qoostay laakiin alxamdulillah ilaah baan ku xirnaa isma dhiibin wiil walaalkayga hadda fiilan jooga ii dadaalay runtii dadaal dheer kadib wuxuu yiri niyo lacagtii ugu dambeyn waa la soo dhici lacagtiina waan helay wuu fasaxay laakiin waxay igu qaadatay bil xabsiga meeshaas ku jiray maalin walba dadka korkayga inay imaadaan liigu dulqaad jiray laakiin alxamdulillah waan ka soo baxay magaalada kadib waxaan imaaday magaalada bin Walid markaan imaaday ayadana waxaan ku jiray 2 bilood kadibna dadkii yaa la qaaday gaariga iga buuxsamay dadka waxaa loo qaadaa marka dadka lacagta doonta bixiya 2200 oo dollar beed marka waxaa loo sii qaadayaa magaaladan ay sheegeen Masrata xagaas loo qaaday aniga gaariga iga buuxsamay dad kale la sugay haddana ka soo socda saxaraha markay imaadaan haddana lacagihii ay bixiyaan kadib nala qaaday aniga alxamdulillah ragii waan ka daw tagay asxaabta ahayn Masrataan tagnay Masrat markaan tagnay sidii haddana ayadana waxa ku jirnay 2 bilood oo kale maalin walba jawiga maalin walba safaraan ahayn beri caawa la baxaa saadan baa la baxaa saa loo jiray 2 bilood oo gaartay marka ugu dambeyn waxaan ka mid noqday ragii oo ugu horeeyay soo baxa laakiin ilaahu naxariistay rag badan ayaan ila socdeen xaggaas ku geeriyoodeen ilaahayna waxaan ugu baryaa naxariis janno inuu ilaahu u naxariisto dhamaantooda waa maasanta aweysow doonida aad sheegtay inaa waa ku raacdeen 600 oo ruux Soomaalidu imise ay ahayd ma noo sheegi kartaa Soomaalida dadku ugu badan ayay ahaayeen haddii aan qiyaaso tira ahaan markaan qiyaaso 400 Soomaali bay ahaayeen inta kale soo hertana waxay ahaayeen ajnabiga waa gartay see loo Eritrean iyo waxa sheegtay in dadka waa la kala kormarihay sababtoo yaani tusaale dadka 16 ee geeriyooday sida ay sheegtay dad hoos ku jiray oo naqas ku dhaga waa marka see loo kala kormarahay ma dadka cayilan oo kala hoos la marihay qaab noocee dadka loo kala hoos marihay horta qof liibi soo maray hadduu cayilna xitaa isaga dar alla caad u noqonayo ma fahmaysaa marka waxay ahayd inta badan waxaa la sameynayay dadka ugu da'da yar ama dhalinyarada ah sida aniga oo kale qaar da'da ka dambaysa 20ka 15ka wixii ka hooseeyay iyo 20ka waxaa la gelinaya qaybta hoose waayo sida wax mar walba waxay ku xiran tahay sida dadka loo soo kala raray doonta marka doonta waxay taagan tahay biyaha gudaha ay taagan tahay dadkana waxaa lagu soo qaadaya dooni oo yaani foolfo iyo faraboorta yaani dool foolfo waa taqaana dabcan doon weyn waaye taas dadka lagu soo gurbinayay kadibna doonta ala saaray dadka ugu horeeyay waxaa lagu la geliyay qaybta hoose marka waxay leedahay way xiran tahay bir waa iyadoo dhan 2 duleel bas ay leedahay 2 duleel marka hoos dad saas loo kala raray dadka odayaasha ah oo sida caadiga qaybtaas ma qayb rakaab loogu talagalay mise in alaabo lagu shubto wallahi doontaasna rakaabna looguma talagalin alaabna is looguma talagalin waayo sababtoo ah waa motor waa meel ciriiri ah way ma fahamtay looguma talagalin qof bini aadan in la geliyo waa gartay marka dumar tusaale kale dumar ma Soomaali dumar oo ma ku jiray safarkiina dumar badan ay ku jireen oo qaarkooda uur laha doonta nala saarnaa adiga dumarku way badnaayeen ilaa iyo 100 way gaarayaan oo doonta nala saarnaa laakiin waxa ugu badnaa
ragga ugu badnaa. waa gartay sida aad sheegtay 16 qof ee meydka ah waxaa la ogaaday markii markabku idiin soo gurmaday meydka dadkaas halka la geeyey xog ah ka haysay ma jiraan? wallahi horta waxaan xasuustaa ragga dhintay oo nala socday doonta waa la soo qaaday Talyaaniga in la geeyey jasiiradda igu war dambeysay ayagoo meedadka la soo qaaday markabka la soo saaray kadibna la soo dejiyay meedadkooda. aniga waxaan ahaa doonta dadka ugu dambeeya oo markabka ka soo degaan ahaa. meedadkana waa la soo dejiyey waxaa la dhigaba xeebta meesha ii sheegeen dekada aan ka xiranay aa la dhigay ayaga 17 qof ah. saxaafadiina way joogtay markaasi youtube-yada way ku jiraan dabcan haddii la raadiyo hadda waa laga heli karaa laakiin meel ay ku dambeeyaan ilaa hadda war uma hayo laakiin Talyaaniga ay ugu war dambeysay meedadkooda. waa gartay dowladda Talyaaniga tusaale meydadka noocaas oo ay gacantooda soo galo meel xogtooda ay ku kaydiso oo qofka Soomaaliga ah ee raba ama waa qof ka maqan yahay ee raba inuu xog ka ogaado oo ugu hagaago ma jiri kartaa? wallahi taas ma jiri karto laakiin say la tahay inta badan waxaa ogaan kara ama safiirka u fadhiya dalka Talyaaniga ee Roma iyo gudoomiyaasha jaaliyadaha way ogaan karaan haddii ay raadiyaan xogag badan way ka heli karaan. waa gartay sawir aan kuu soo diraa jiray kaasi oo wiilkaas oo magaciisa la yiraahdo Cabdullaahi Ismaan Cali Maxamed aqayaarta igu soo ka xirtay waxay ii sheegeen wiilkaas inay garanayaan dadka 16 ee dhinta uu qayb ka ahaa inkastoo ay ila hadli waayeen oo ay in waraysiga yani ka gaabsadeen. wiilkaas adiga ma garanaysaa? wallahi wiilkaas ma xasuusto laakiin waxaan u badinayaa inuu ka mid ahaa dadka xerada kale ka socday. waa gartay ugu dambeyntii hadda Yurub aad joogtaa nin jawiga u degayaa tahay oo shaqeeya tahriibayaasha ama dadka Soomaaliyeed ama dhalinyarada u badan ee wali ku haminayay inay xaaladda adag nafta ku soo biimeeyaan maxaad kula talinaysaa? wallahi horta dhalinyarada horta intaan talada siinin aniga waxaan ka aaminsanaa Yurub marka hore dhalinyaro iga horeysaa jirtay waagi aan Kenya joogay waxaan ii sheegi jireen way soo tahriibeen oo xagga saxaafadda aan asxaab ku ahayn way soo tahriibeen dhibaatooyin fara badan ay kala kulmeen Liibiya saxraha ilaa Talyaaniga ay ka galeen oo isla xiriirnay way ii sheegeen runtii waxaan mooday waxay igu dhahan iska joogay igu dhahan walaalkeena tahay waa shaqaysataa meelaad degan tahay xurnimada haysataa laakiin waxaan mooday inay cadowgii yihiin runtii waxaan go'aan ku gaaray ayagu way tageen waxba ha dhageysan runtii bil kadib go'aanaan gaaray waa soo dhaqaaqay laakiin aniga dhalinyarada iga dambayso taladaan siina waxay tahay kulay ima maqli doonaan hadday maqli doonaan insha Allah taladeeda inay qaadan doonaan ma maleenayo laakiin waan siin doonaa insha Allah waxaan leeyahay runtii horta xurnimada wax ka fiican ma lahan dalaan dalkaaga ahayna waa dareen ku joog mana la hubo markaa soo tahriibto oo wado soo marto ama safar soo gasho waxaad kala kulmi doonto ma taqaanid adigoo adduun raadinaysid haddaa dhimatana waa wax aad u xun runtii waxaan leeyahay dhalinyarada lacagaha aad ku soo tahriibaysaan wallahi wadankiina iskaga maalgashta iska shaqeysta wadankiina qof walba wadankiisa meel u dhanta ma lahan runtii aniga hadda halkan waa joogaa waxyaabaha saan u maleysanayay iyo waxaan kala kulmay horta farqi weyn u dhaxeeyaan muddo badan 5 sano saas u wareegay Yurub meelaan tagin malay 12 wadan oo Yurub kamid ah waan tagay laakiin ugu dambeyn alxamdulillah hadda France aan deganahay sidaa tahayna kuma faraxsani wadankayga mar walba waan jecelahay inaan ku noolaado ama dib ugu laabto laakiin dhalinyaradu waxaan leeyahay ugu dambeyn wadankiina iska jooga iska shaqeysta lacagta ku soo tahriib leedaana ganacsi ku sameysta idinkoo wadankiina jooga oo xurnimo haysta cabsi la'aan ay ku joogtiin iska shaqeysta saas adin kugu dardaarmaya insha Allah. aad iyo aad u mahadsantahay Waysow waan kaaga mahad celinaynaa jaaniskaaga qiimaha badan ee aad na siisay iyo sidoo kale xogta muhiimka u ah dadka Soomaaliyeed ee aad nala wadaagtay. aad iyo aad u mahadsantahay saaxiibkay Bashiir waan kaaga mahad celinayaa adna sidoo kale waad mahadsantahay sida quruxda badan aad bulshada uga adeegayso waan kaaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhawaan la baahiyay muuqaalka dad Soomaaliyeed oo qaarkood dadkoodii tacsi u dhigeen isla markaana laga sabray
oo dowladda liibiya ka sii daysay gacanta magafayaal ay gacantooda ku jireen waqti aada u badan. haddaba kadib waqtigaas waxaa soo noolaatay rajada dad badan kuwaas oo nolol iyo geeri ku weysnaa dadkooda.